afkan hooyo ama afka aynu leenahay af Soomaaligu waxa weeyaan af taariikh dheer leh afkan Soomaaliga waxa la yiraahdaa wuxuu jira ilaa 8,000 oo sano meelahaas kuna ka sii badnayn Soomaaligu waa af weyn ballaaran aad qani haddii af qani jiro waa qani muddo dheer fara badan ayuu ahaa af aan far lahayn oo aan la qorin ee afka kaliya la isaga tabiyo ayuu ahaa 1972 ayaa waxaa dhacday in lagu dhawaaqo maalinta qorista farta afka Soomaaliga 1972 kowdii Janaayo dad waxa isku khaldaan maalinta qorista oo dhaqan gala af Soomaaliga ee wargeyska la yiraahdo iyo maalinta qoraalka farta af Soomaaliga guddigaas wuxuu sameeyay xarfo iyo codad iyo sumado la xiriira afka Soomaaliga muddadii xilligii kacaanka ayuu af Soomaaliga wada si fiican u hirgay oo u hana qaaday dugsiyada xafiisyada maamulka ilaa heer jaamacadeed ayaa muxuu ahaa lagu adeegtay oo muxuu adeegisu uu gaaray dawladdii kacaanka ayaa warqadii ugu horeysay oo soo saareen ballanqaadyadii ay galeen waxaa ka mid ahaa afka inay far lagu qoro u sameynayaan iska dheh ma noqonina waa ka dhabeeyeen far ayaa loo diyaariyay afka niman wax yaqiin afkana si fiican u yaqiin ayaa far u diyaariyay fartaas 72 la soo saaray waa loo qoray inta codada Soomaaligu lahaa mid walba waxa la siiyay xarf u gaara oo lagu sawiro ayaa la siiyay laga bilaabo waqtigaas afka aad ayuu hormaray gaar ahaan intii uu joogay General Maxamed Siyaad Barre inta uu ka ahaa madaxweynaha dalka kacaankii ayaa dhashay dawladihii hore ee rayidka ahaa waxay ku guuldaraysteen inay hirgeliyaan qoraalka farta afka Soomaaliga waayo waxa afka Soomaaliga hirgelin karay saddex arrimood ba hirgelin karay in afti loo qaado in baarlamaanku uu mariyo iyo in awood lagu gudbiyo awood lagu meel mariyo kacaanku markuu dhashay kacaanku inta uusan qaadin talaabo wuxuu u yeeray guddigii qorista afka Soomaaliga halkan aan joogno ee akademiyada cilmiga iyo fanka suugaanta ayaa lagu qoray guddigaasina ku shaqeynay luqadan inay facweyn tahay Sheekh Yuusuf Kawnayn markii diinta islaamku ay noo timid sheekhi wuxuu ahaa diinta ka qaatay fidinta qayb weyn si dadkii uu fududeeyo inay bartaan quraanka wuxuu sameeyay alif la kordhabay alif loo sdhabay alif la goday Sheekh Yuusuf Kawnayn waxa laga joogaa ku dhawaad 10 sanadood imika waa sheekhi diinta Soomaaliya ku fidiyay Aasiyadan barina ku fidiyay diinta Maldivia Sri Lanka iyo wadamada ka shisheeya marka waa luqad intaas sano soo socotay waa luqad dhaqan leh taariikh leh suugaan leh oo guul weyn oo aad u fac weyn isla markaana haddii la isticmaalo oo cilmi baaris fiican lagu sameeyo eray bixinteedu ay tahay eray bixin cilmiyeysan sababtoo ah waa luqad xiriir la leh deegaanka iyo dadka maaha luqad mataqaana ka dhalatay reer magaalnimada ama madaniyada tusaale aan siinaya nimanka reer galbeedka Kanada iyo Ruuska iyo Mareykanka oo meeshan Greenland la yiraahdo qolba dhinac ka deganta nimanka Afrikaanada u ah iyo dhaqan-yaqaanada waxay isla gaareen qoladii aan afkeedu qorayn oo far lahayn 100 eray 50 eray 70 eray hal shay oo ay ku dhaqmaan u leh ya waa dad cajiib leh oo maskaxdeedu iyaab leedahay iskiimaysan ma la yiraahdo oo gaagaaban oo barafka degan meelaha barafka leh
ayaa barafka waxay u yaqaaneen ilaa 87 eray ay u yaqaaneen waxaa la yidhi waa horyaalada dadka maskaxdoodu ay furan tahay oo si fiican bay'adooda u yaqaaneen dhig meel Soomaalidu af geela markii laga hadlayo ya ilaa 3000 iyo hehe ayaa la hayaa eray oo loo yaqaano geela ma iga aaminaysaan ma ila geel wax kama taqaaneen geelana leedahay digada madada waxaa rabaa dadku in ay fahmaan oo bartaan oo xil iska saaraan sidii ay u adeegsan lahaayeen afkooda hooyo waayo matid ingiriisi matid maraykanna matid sidaa darteed waxaa loo baahan yahay inaad afkaaga aqoon u leedahay oo qoraalkiisa iyo dhawaqiisa labadaba aad taqaano ilaalin kartana adogu wiilku wuxuu ku leeyahay aabbo wiilkuna wuxuu leeyahay aabe hadda maxay keeneen adogi yalka laga dhihi la aabe aabbo ayaa la leeyahay aabbo TV-ga sahalaynaya afka xamar weyne shaqaaniya laga sameeyay tarjumadda alla idan qabay ya afka horta dhibkaas ku socda kuwa saas wax yeelayaad ka mid yihiin muddadii xilligii kacaanka ayuu af Soomaaliga wada si fiican u hirgalay oo u hana qaaday dugsiyada xafiisyada maamulka ilaa heer jaamacadeed ayaa muxuu ahaa lagu adeegtay oo muxuu adeegisu uu gaaray muddadii burburkii dawladdii dhexe Soomaaliya uu dhacay markaas ayuu dhulka galay oo uu maartay aad hoos u dhacay oo dhulka galay waxa ka saaray daaqad oo baabi'iyay afafka ajnabiga ah kuwaasoo inta badan dhaqaale ka heli jiray muxuu ahaa in dabadaha dhaqaale ka heli jiray ayaa muxuu ahaa daaqad ka saaray dawlad markaa maamuleysay oo muxuu ahaa wax ka qabanaysay muxuu ahaa markaa ma ay jiray social media ayaa wuxuu qayb weyn ka qaatay burburinta af Soomaaliga dhanka qoraalka iyo dhanka hadalka eray bixin aan la isla ogeyn bay iska samaysteen eray aan la isla ogeyn bay iska samaysteen kale sharci iyo qaanuun dadkii marka duuna sharci ma jirin qofka waxa la rabaa inuu damiirkiisu sharci u noqdo oo qaanuun u noqdo oo xeer u noqdo oo uu arko afka inuu isagu leeyahay laakiin haduuna arkin maanta xeer qabanaya inuu sidoo raba sameeyo oo afki ku tunto waa laga fiican yahay sababtoo qofka maanta afku ciyaaraya waa bari waa mustaqbalkii ubadkiisa bartooda afku waa raasamaal maguuraan oo dhaqan ummad kasta oo af lahayn taariikh ma laha afku waa abtirsiintuna ma taqaana taariikhda iyo dhaqanka iyo ilbaxnimada iyo hiddaha ummada leedahay weeyaan hadduuna af jirin wax hidda iyo dhaqan iyo taariikh iyo abtirsin aan leedahay ma jirto